فيري ويس عاوة حتى الدنيا أنا في رصاص أنا ويس welcome to my channel True Story TV dad badan waa ku yaqaaniin Aweys Muuse Arbow oo Aweys Fundi loo yaqaano ciyaartoydii hore horseed mataqaanaa national team-kana ahaa magaalada Allaana la degan Aweys waxaan ku weydiinaynaa mataqaanaa su'aalo badan caawa marka waxaan jeclaan lahaa dadweynaha la socda channelkayga ama dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta joogaan inay caawa warkaaga mataqaanaa ay ka bogtaan su'aalahan ku weydiinayno wax badanna joog waa kaa sameeyey saaxiibkay baa tahay marka joogii waxa True Story ana inaa caawa cadaysid baa la rabaa marka Aweys waxaa noo sheegtaa meeshaa ku dhalatay iyo sanadka waqtigu ahaa بسم الله الرحمن الرحيم وأنا هاي لو أنت وصل وصل channel كان True Story TV ده هذا مناقصة ساشكتي وحنا عيالتي هرسات الصومالية يحرك خلقة جوجا لنا وحملنا وحبنا ضدك لكن وحكم خن مقعي وهاي لك كثير كم خن دوالوها يعاو كنا أنت أنا مو خلقي لكن عاوها كان مو خلقي Aweys goormaad kusoo beertay ciyaaraha waxaan la socdaa inaad juniorka jenior kow ahayd maqal bay ku tahay kow sidii jenior uga tagtay iyo wixii dhaca noo sheeg runtii waxaan kusoo beeray kooxda ciyaaraha kooxda jenior 1976 anoo ahaa heerka labaad ee juniorska Soomaali juniors la yiraahdo intana waxaa la yiraahdaa heerka labaad af Soomaali marka loo noqdo sanadkii hal sano la joogay kooxda jenior waxaan u ciyaaray ciyaarihii juniorska oo dhalinyarada kadibna sanadkii 77 waxaan ku wareegay kooxda horseed oo ilaa 86 dhamaadkiisa aan ku dambeeyo ciyaarihii ku gabadhaweeyay waxaa kaloo noo sheegtaa Aweys kooxda horseed horta run ahaantii waxay ahayd kooxda Soomaaliya kooxay ka jiray kooxda ugu xoog badan bay ahayd haddaan la xaqirayn inkastoo aniga aan ciyaartooy badan ka aqaanay oo qaar saaxiibo aan la ahaa qaarna aan jeclaaba ciyaartooda horta aanu defooso uma ahayn laakiin batroolka iyo madbacadda iyo kuwaas dhalinyarada iska xaafadda ahaayeen baan defooso u ahaa batroolkana waxaa u ciyaari jiray Mukhtaar Cuti iyo saaxiibkay Ayga iyo Axmweli Ito laakiin waxaan la xaqiri karin ciyaartoodii horseed ay ka mid ahaayeen Jeelani Khaliif Cabdikuus Allah naxariiste Scott Shaash Saciid Ducaale Cabdiliini mataqaanaa Killer Maxamed Ismaaciil ciyaartoy aad u wanaagsan baa lahaydeen marka horyaalkana inta ugu badnaa adinkaa qaaday janadawna adinkaa ugu badnaa baan filaya marka waxaad nooga warantaa jay adinku waxay ahaydeen laba koox aad iskaga soo horjeeda oo mataqaanaa aad ugu dagaalama kubadda waxayna horseed ahayd koox kastoo la ciyaaraysa horseed horta waxay u ahayd sida Barcelona oo kale ciyaar adag bay u ahayd final bay u ahayd marka nooga waran bal ciyaarihii inay ku adkaa oo waqtiyadaas aad soo marteen runtii kooxda horseed waxay ahayd kalaab weyn wax walbana u dhan yahay waxaan lahayn kubadda cagta waxaan lahayn basketball waxaan lahayn volleyball waxaan lahayn orodo waxaan lahayn waran la tuuro wax la yiraahdo ciyaaro dhan u dhameyd waxay lahayd feer bay lahayd tennis ay lahayd ping pong kubadda miiskay lahayd marka anagu ma ahayn koox kaliya oo sidii kooxaha kale oo hal koox kubadda cag kaliya lahayd anaga kalaab dhalan ahayn inta badanna kooxdeena waxay ahayd dad kooxaha kale waa ka waaweyneen waa ka aktisneen waxaan ahayn dad kalaab ku xaraysan oo hool yeer ciyaaraha intay socdaan oo meel wada seexdo meel wada joogaan ahayn
runtii saa sheegtay kooxda horseed kooxdii ugu fiicneed ay ahayd waqtigii aan jirnay sababtoo ah waxa waaya cayaartooydooda iyo cayaartooyda kale isku hal ma ahayn xagga dhaqaalaha iyo xagga mataqaanaa maamulkeena cayaartooyda sano walba markay cayaar leeyihiin hal meelaa lagu xarayn jiray raashinkooda kooxdaa bixin jirtay dhakhtarkooda waxooda dhan runtii cayaartooyda ugu waaweyn hadda oo horseed waddanka ka cayaaray intooda badan waxay soo mareen kooxda horseed ninka la yidhaahdo saciid ducaada ninka la yidhaahdo waxa u dheelay kooxdii booliska kadibna horseed uu noqday adiga maxamed ismaaciil cafiifa سعيد إسماعيل شاش سكوت جيران خليف عبدالكوز كيلر عبدالليني بيولي بورتيرياش وفعنا صح بورتيري وفعنا نوحوها نادي الهرسات جيران خليف وها نينك كوحيدا نوحوها بيولي صح inkastoo naadiyaasha kale ay lahaayeen sidii Georgia kale macnaha qofka ma loo fiiriyo waa booda kaliya qofka ay u dhan tahay qaabka sportiga sacad oo kala jiray xirsi waadi waa gruubkii mutaqaana waa xoog iyo heedwa marka daruntii kooxdana dadka haddeer waagi hore qof walba catiifad koox uu jecel yahay uu doodi jiray waa xaqiri jiray runtii laakiin 4 sano isku xigta koox horyaal qaaday horteeda ka jirta mideeda kale anagu dadka inkastoo waddanka ay ahayd waddan military uu ahaa colaadda ay u qabeen siyaasi ahaan dowladda bay kooxdeena ugu soo horjeedeen inta badan waa kastimaho midda kale awees waxaan ku weydiinayaa waxaa maqaalo ugu ah allah u naxariista wasiirkana arrimaha difaaca maxamed cali samatar inuu nin sportsman ahaayo oo aad horseed wax u tiri jiray taasna maxaa ku dari kartaa waxaan ku darayaa allah u naxariisto maxamed cali samatar nin aad iyo aad naadigaasi oo ku tiirsanaa u ahaa ma ogoleen nin la socda u ahaa naadiga meel walba oo dhibaato jirto ama naadiga markii 2 mar laga badiyo xerada ugu imaan jiray asoo sarkaal hoose oo naadiga wadi jiray ninka ilaa heerkaas soo gaarsiiyey oo cayaartooy kasta ay kooxda u baahan tahay ninkii waxuu raba u fulin jiray صح markuu kooxda ninkaas uu ka tegin kooxda oo isbedelka dhacayna kooxda waa burburtay waaba burburtayba waa nin isboorti ah keli ma horseed xataa kooxaha kale maadaama uu maamul sare ahaa wax walba say hoostegi jireen sababta waddanka naadiyaasha ka dhisnaayo dhan dowladda ay u wada shaqeynayeen naadi private ma jiro isagu madaxda ugu sareysa u ahaa haddana kooxdiisa asaga uu mas-uulka ka yahay maamulkooda wixii loogu tago waa ninkii yiri loogu tegay kooxdan in la xareeyo hool yeer waa ninkii yiri okay ma jirin naadi oo hool yeer la xareeyo dhinac kale waxaan ku weydiinayaa aweys cayaar waxaan xasuustaa aan isbartiibada joogay stadi coni oo adinka inay habeen baa la cayaarayay ramadaan aan filaya adinka iyo batroolka cayaaraya dagaal baana ka dhacdhacay ninkii weerarka cabdillaquuq la dhihi jiray iyo waxaa isku dhacay scott shaashna markaas dagaalka qaybka kale maadaama loo soo heliyo ninkaan si marka dad badan baa khilaafaad sameeyo cabdillaquuq waa lagu goobtay bay yihaahdaan alasna ninkii koornada la baxay baa dagaalka dhinac ka galay bal nooca dee dadka runtii anagu dad waxaan ahayn horyaal tiigsanaya kooxahan kale batroolka kooxada horyaal tiigsanaysa ma ahayn laakiin koox walba markay anaga nala cayaarayso magac waxaa u ahayd hadda horseedaan bareejiye ama aan ka badiya magac u ahayd sida kooxaha hadda champion leagueada dheelo kale barcelona bareejay barcelona bareeji la gala real madridan qaraay bes alahaasay u joogeen kooxdan la yidhaahdo batroolka koox tiigsanaysa ma ahayn horyaal annaga inay na celiso lagu samayso mataqaanaa rabsho si cayaartooyna looga ganaaxo oo naga dhaawacaan markaan ka badinina aflagaado ayuu cabdillaquuq iskoodoo nin ka weyna ayuu aflagaadiyey iskoodii waxay ka bilaabatay rag baa usoo hiiliyey inkastoon dagaalka annaga dhan wada gelin
waa xasuusta marka ay laba kalaba naqatay inta kale oo istaageen cid intaa cidda kale ku xadgudubta male laakiin xiriirka laftiisu khalad weyn uu galay markaas isla habeenkii toddobadii habeennimo hal saac habeennimo soomaali markii la rabaa toddobadii hadda marka inta la yidhaha isla marka go-aana soo saara oo yiri cayaaraan ka wada joojinay scood iyo shaash iyo kulle uu yiri asoo xiriirka uu markaas ayagoon baarin iyo ayagoo khaladaad badan hor u galayna ay qalad ka sahlan ka weyn iyadoo hore loo galay khaladkan ay ku degdegeen isla markiina arrintii waxay gaartay dawladda isla markii waxaa waaye markii laisugu yimid gardarada ayagay ku caddaatay saas ku dhamaatay marka taasna waxaan u sheegaynaa dadweynaha macnaha dadka joogay ama dadka waaweyn oo cayaarihii la socday inay arrintu saas u dhacday xoogaa mugdi baa iiga jiray laakiin aweys caawa uu ii kala bixiyey ta kale aweys oo cayaartoy difaaca baa ahayd oo nin aada u adag baa ahayd oo difaac ka dheera horseedna ninaa cayaartoy fiican ahayn ma u dheeli karin marka aan lagu kalsooneyn cayaaro badan oo safatayna waa ku fiirsada anugu waxaa ii sheegtaa cayaartooygii kugu adkaa ama ninka isdhehaysa weerarka ahaa oo isdhehaysa nin xoogaa cabsi kuguma jirin laakiin nin walba difaac runtii alla u naxariisto cayaartooy badanaa soo maray waddanka oo talent leh laakiin aniguna waxaan ahaa cayaartooydii nambarka labaad ka dheesho ugu adkaa waktigaas waxaa ugu fiicnaa waddanka cayaartooyda markaas aan raacayo inkastoo gameka intaan la gaarin ay training jiray preparation aan soo diyaarinayna allah u naxariisto labadaba waa dhinteen horta ninka la yidhahda cabdullaahi cabdi ilaah u naxariisto shiikaalo waa dhintay waa cayaartooy aan hilmaami karin waxaa ka mid ah bashiir jenyo oo isaguna jenyo u dheeli jiray shiikaalo munshibi oo ahaa cabdullaahi cabdina badda u dheeli jiray waa rag meeshii laga rabay cayaartooy weerara caqlina badan wax walbana ku fiican farsamo iyo wax walba ku fiican hadde waa nin anigan waxa ah nin waardiye laga dhigoo la yiri waaye raggaan caqliga badan ilaali anigana basarkeyga iyo xoogaygaan ku dhaqmay marka waad dareemi kartaa cayaartooy qaran dheelay inaan turufi iyo beelbeel lagu gelayn meel banaana marka cayaartooy badanaa jirtay oo sidii sometimes mararka qaarkiisa adoo duuba ka dheelaya nin raacaya ayay cayaartooyda isbedelaya waxaa imaanaya booskaaga qof kale maxma xaaji uurey nin la yidhaahdo jeni u dheeli jir oo kale dictor shaqaaq oo kale allaha u naxariista isaguna dad badan macalin ayuub oo kale adiga cayaartooyda nuurgaab oo kale mataqaana waxay ahayd cayaartooy meeshii laga rabay laakiin nasiib daro waddanka ayaa systemkiisa system wuxuu ahaa communist u ahaa cayaartooydeyna horumar kooxo badanaa soo doontay oo caraba inay gataan george oo kale cayaartooy badanaa lasoo doontay markii dambe waddanka waa siin waayo waa u diiday annaga waktigaas hadda ninka liraa saciid ducaala wuxuu u cayaaray alzamalik u dheeli keliya axmed sakiir ninka la yidhaahdana munishibi u dheeli jiray waa ka tegey sacuudi markuu tago cayaartooyga ugu fiican asagana allah u naxariisto cayaartooyga sacuudiga ugu fiican oo ahaa marka ma helin nasiib george oo kale waa lasoo doontay waa loo diiday adiga cabdishakuur oo kale isaguna carabta xamaam oo kale dowladda sacuudiga markii cayaarihii ay ku dheereen ugu dambeeyey waxuu ka qabtay rigore ninka la yidhaahdo maaji cabdalla oo penalty ka qabtay isla markii amaraa la siiyey waxaa la yidhi haddaad barnaamijkaas lagugu maqlo iska jir hoteelkaa loogu yimid waa la shuqaansan laakin waxau yidhi ani askarina waa ahay madaxna waa leeyahay awooda ma lahayn okay aweys waxaan kaloo ku weydiinayaa dad badan aniga waxaan ku caanbaxay joog iyo wax joog badan waa kaa sameeyey markaa xamar tagtay dadweynaha waxaan u sheegay inaad maqaayad cunto ka cuntay ood maqaayadii nin uu dhigay mataqaanaa boorso yar bac yar oo hilib ku jiro oo dooli galay kabacdi dadkii maqaayadii ka carareen hal albaabna waa leeyahay exida dadkana dadka ugu weyn baad ahayd adigu ugu xoog badan ilaa dabo life bay kuu arkaan waxaa malan aan weliga xayeysi inaa qabatay oo oday habar gacanihii lu ka jebisay oo
500 kun oo dollar kuwa aruurinay shanta kalena farmaajaha liigay hatari bal arrintaas ka waran والله runtii aniga hadda saaxiibkayga tahay marka horeba markaa joog samaynaysid anaa fasaxay qaadanaysa waxaan kuli jira gooheed waa sax ya waxaana tahay dadka hadda aniga oo joogaaga oo camira sax waay dadka inta badan waxa facebookaaga fiirsada waa dad sporti ah sax marka dad badan ay weydiiyaan war arrintan run miya waxaa run ma ahee xamar waa tegay laakiin aniga dad madajibin ya marka runtii dad badan ay weydiiyaan warniya markii arka aweys miyaha ayaga miya yaqaaniin laakiin aweys ninka mataan ka sheekay miyaha warniya xamar baa tagtayo dad baa jijibisay war aniga dadna ma jijibinina ninkaan laakiin waa comedista waa free waa wixiis aweys waxaan kula kusoo gabagabeynaynaa arrintan ciyaartoy badan baad adigu soo macnaha la soo ciyaartay ciyaartoy badan baad taqaanaa marka adoon soo koobi karin ciyaartoydii badneed horseed ama naadiyaasha kale ani adiguna waa la soconaa magaaladaana wada degannahay isku qaaraan baan nahay isku dhiig baan nahay labadana walaalaha nahay inkastoo anaga ciyaartoyda badankooda banaanka ka fiirsan jiray kullina waa taqaanaa kullina waa aqaanaa ciyaaraha lagu sheegayo sidoodaba dhinac ciyaara kalima waa nin fiirsan markaad aragta calaamada olombiga ee wareegyada shanta waa ciyaartooy garoonka gala maamul صح iyo waxa waaye difoosiyaal fiirsada adiga shantaas qeybay ka kooban tahay adiga oo guruba meel haddii kubadda dadka ciyaaraya haddaysan haysanin dad daawada dad dhalmada iyo maamulkii iyo waa isku jiraan yaa caawa gaar ahaan aniga horta salaan weyn waxaan usoo jeedinayaa macalinkeenii ibrahim suudaan oo minnesota ku nool oo niniga weyna oo marna saaxiibkaya marna aan qadariyo oo si fiican isu naqaano horta salaan baa caawa usoo jeedinaya iyo ciyaartoydii soomaaliya dhan wax alaala wixii nool بيدتنا له ونحرس يا جارهان عاو سلام ساويس ردي وحن سلامة يا معلم كي إبراهيم محمد حسي إبراهيم سوداني إبراهيم سوداني وانين كل سجال بحر لحد من سجالكي وحكيم وحكونا شاسجا إريتري وحكومة باري وكسوينا دي السودان إبراهيم سودان صارت لويري سودان وكيم صح عيارتون سيربية السودان واها ودنكو يمين ملتريغو وديلي حوغا أسو وديلا يوم تاركري معلنا وحلو ديلي جرمالكا ننكي وغوري ونقضي أسوغا إيو بوديسي محمد بوديسي إيو معلن عمر عجست إيو ننكي وغورينا وننكي وغوري ونقضي وغورينا حتى waxay leeyihiin wiiri war adiga si ku dhaqatay macallin hadda wili nin dheeli kara tahay macnaha marka practical la sameeyo nin waxaan ahaa wiiri oo dadka ilaa dadka kale waa ka waaweynaa ninkan asoo wili aan heer retire gaarina laga joojiyo ciyaaraha macallin ruusha ka joojiyay markuu soo noqdayna naadi ku soo noqdayna tiimkii dad badan oo odayaal ka buuxay isbedel uu ku sameeyay tiimka horseed 1976 marka aniga tiimkan ku beeray tiimka wuxuu noqday kooxda labaad Eastern Central Africa final timida ahaa waa dareemi kartaa Africa kooxdii final la gashay Tanzania laakiin markaas Ismaaciil Garile iyo ma ku jirin horseed kaliya ma markaas horseed kaliya lagu qarxinayo tuurayo horseed kaliya ma waa ka horeysaa horseed kaliya waxay ku ahayd kooxda marka finalkii ay soo gashay Eastern Central Africa da Soomaaliya moogtay Afrikaanta waxay noo haysatay dad kale mar walba Afrikada kale noogu hiilinaysa waa sax sanadkaas waa ku xasuusinaa waxay ahayd sanadkii Al-Ahli Al-Khadiib oo halka gool oo kor lagu bareysiyay tiimada Stade Koni oo jilku u xirnaa gariile ma dheelayna waa runta wax xasuusta markaas kooxda marka meesha ku dhaysay ciyaarta kale Masar ay la dheelayeen Masar la aaday maalintii ay garoonka ka soo baxeen waa markaan ku biiray kooxda okay ninka iga soo waday anoo badda
junior jenior ah oo badana joogo Liida ku dheer. ninkii liida iga soo kaxeeyey ibraahim maxamed xersi ibraahim suudaan oo ahaa ilaa heerka aan cayaarahan fursadda ii siiyey asaga u ahaa asaa ku ammaanan aniga ma ahayn waktigaas cayaartooy difaac ma ahayn nin waxaan ahaa dhexda ka dheela juniorka jenior dhexda aan ku dheeli jiray laakiin markaa naadiga imid kooxdoo dhan horay iyo dhexay ahayd difaac badan ma jirin macalinka waa ii yeeray wuxuu yidhi ningo kaali waxaan rabaa inaa ii xisaabto dadka dhexda ka dheela maadaama anigaan dhexda ka dheeli jiray markaan dadka xisaabay waxaa joogay cabdilini burci oo hal position ka dheeli labadooda madaxa ka dheeli jiray cabdilini weliba number 8 ka dheeli jiray wuxuu xisaabay killer cabdilini burci killer cabdilatiif cabdinaasir صح وكسمايل laga qaatay kismaail laga qaatay intaas shariif cabdalle yalla dhashay intaas buu cayaartooy dhexda hore yuu yidhi xisaab hore markaa xisaabay cabdikuur ninka la yidhaahdo cali gurey صح cali gurey waxaa joogay ninka la yidhaahdo cafiifa waxaa joogay maxmed ismaaciil killer marka difaac xisaabi uu yidhi wuxuu rabaa inuu ituso meesha ay kooxda ka liidatay inuu u geeyo difaacan xisaabay cabdikuus shaash iyo iskood ay noqdeen iyo cabdilini cabdilini wuxuu yidhi wuu baxaya ninkaan muddo ka bacdi marka waxaan rabaa inuu difaac ma hayste ka waran haddaad difaac ii buuxisay waxaan ku yidhi diyaarana difaaca marka saasaan ku gala aniga difaacan ku noqdo wuxuu yidhi training waa lagu siinaa anaa ku siinaya ninkii ii training gareeyey nimankan gaanjibayaasha ah oo shaash iskood iyo dhexda iga geli hadeen waa nimankii runtii number 5 iyo number 4 waddanka dadka ugu fiicnaayay ahaayeen waa garibti sax waxaa soo raacay qalooco nin la yidhaahdo qalooco jayn la oran jiray nin asagana stober ugu fiican uu ku jira sax marka ninka iga soo qayb qaatay waagii uu garoonka aan galay isla sanadkii dambe qaranka u saftay waa ibraahim suudaan marka way ibraahim suudaan waa ninka saas yaa kaloo salaamaysa ciyaartooydii waxaan salaamaa dhammaan ciyaartooydii kooxdeeda naadiga horseed especially kabtanka kooxda scott ismaan xaaji mayaa layidhaah scott waay waa nin asaguna aad markii kubadda lai soo gooyo dejin jiray ii sheegi jiray difaac ugu fiican baa Soomaaliya kaliya nabarjiinku waa Soomaaliya banooni dejin karo ahaa ana waxaad raacsanaa taas iyo shaash sax dhammaan waa salaama horseed waxaan salaamayaa saaxiibkay cabdilatiif maxamed qaas ahaan markaan ibraahim suudaan laga soo taga aabihii marka laga soo taga ilmihii laga soo tagaa marka de waxaan kuu sheegaa kooxaha kale oo dhan mataqaanaa aniga dad nin waxaan ahaa aan cadowtinimo kooxda u qabin sababtoo ah kooxaha dhan saaxiibaan la ahaa sax laakiin ninkii erabdare iyo ila yimaada waxaan dhihi jiray niyaho laba weji ma lihi aniga hal weji aan leehay banaankana inaan ku qosolno meeshaan ay waafaqaasla shaqeynaysa respect me waa ku xushmeen ciyaar wanaag waa taas ciyaar wanaag waa ya marka خاص ahaan kooxdeeda horseed waa salaama waxaan salaamaa maamulkaygii asagana hore yuusuf muuse faarax la yidhaahdaa wuxuu joogaa maraykanka ku nool yahay isagana minnesota ku nool yahay wuxuu degan yahay magaalada la yidhaahdo moncaro kooxdeena horseed ninka wixii loo baahan yahay u fuliyay marka haddii inta kale ka tagana waxa waaye lama koobi karo ciyaartooyda ma koobi karo cabdilatiif nin yidhaahda jiro shidanaa jiro saaxiib reersiigaa lahaa isagana ciyaartooy fiican ahaa oo madax ku fiicnaa de waxaan ahaa ninkii u foorada dheeraa markii foora free foorada la tuuraya gacanta ninkii u foora dheeraana waa ahaa uma ka darnaa ninkii u dheeri jiray عبي وانا كتوري كافولتها سنة فوردينا كورنا هي عيارتوذي كل جول كمدح على قول اللي يجري كوبا صح هذا بريمير ليج يركز ساجا مركا سبانيش ليج ها هي مركا ويسو واحد جوجا ومضى مو شيء أما واحد معها
oon caawa ku xirno sheekada. wallahi adiga arrimahaas horta mataan waa la kala leeyahay shaqada adigaan jooga ku wadainanku adi maadaama hadda lajin aad ku noqotay jooga may waxaa lagu xantaa maamaha soomaaliya wuxuu ka yaqaanaa weys hadal badan hadal badan haan ma buuxsho hadal badan haan ma buuxsho markii dada hadalka noo qaabilsan anaga reer koonfureedka ma warbato maanta waxaa arkayay nin ka hadlayay Jubbaland siyaasadda ma galnaani adigu aniga siyaas shaqo ma leh marka nin baa ka hadlayay maanta wuxuu yiri I think inuu Kenya wax ka yahay mataqaanaa aadan ducaale wuxuu yiri Soomaalidu waxay ku mahmaadaa naag waxaa jirta naaga uusan jirin hadday uunsato meelo badan bay iska gurtaa kulaha marka dowladda Soomaaliya ula jeeda dowladda Soomaaliya ma uusan jiro kulaha ani marka joog baan duro waxaa yiri haddaysan uunsanin ka waran taa uunsanin ka waran soo kama darata uunsanaysa والله أنت أنا سياسي منه لكن دولة جعلها ودنك وجعلها أنا ودنك الحمد لله ودنك وجعلها وكسون ولا وماشي عن بيك هان كلمة دواي ماشي كدام بيننا ماشي كدام بيننا ونرجينا نواي لكن وحن كحوم هاي إن أيضتك المامين إن بريت قبر لسجينا لسلح ساعتنا صح نن أسوء جيدو دولة نمدي وكسعد ودنك اللي قلنا أدنى قاعد راسنا. أنت إلهي أنا خفت. إلهي أنا خفت. أنت همبورك كسر العين إلهي إيمانك هالصوت. الحمد. إلهي نحقها هالصوت. إلهي حقها هالصوت. ودنك دبعت بدنا أمده هيس. صح. أنا روح عني إيمانا ساعنا إن بدنا في جوجنا. لكن قفك أمده ونحيني. ما إلهي كخبته أمده. إلهي كخبته. هنا أقعده. وحكستو قاتو. إن بريته. لا حسابته. لا إلهي ولا حسابته معي. ما سنتها ويس. هذا مضر. Thank you so much. Welcome to my channel. True Story TV. All right.